بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتنا قالقا كسر دوادا نيل ميديا ومركلي يو أنيقو عبد الله وقوي waxaan rabaa maanta arrin aad iiga yaabisay oo sumcadeena Soomaalinimada ah sumcadeena haday Somaliland ahaato iyo haday Soomaaliya ahaato kulayda Soomaali baynu wadanahay oo afkii baynu wadaagnaa luqadii baynu wadaagnaa diintii baynu wadaagnaa waxaynu wadaagnaa isirkii waxaynu wadaagnaa dhaqankii nina diidi maayo Soomaalinimada marka arrin waxa weeyaan inagana waxaynugu waxaan la yiraahdo sumcad daro ayaan maanta waxaan ku arkay anoo googlaha ku jira waxaan noqotay inaan shicibka iyo madaxda kala duwan ee wadankeena aan la wadaago arrinkan waa arrin aad iga jacabiyay meeshan ka arkay iyo sidaan u arkayba waan tusi doonaa waxaan ka arkay website la yiraahdo Tracker Coronavirus waxa weey website kaas oo ku dhufanaya waa wakaas website ka weeyaan website kaas ayaan ka arkay arrinta la yaab kale oo cajaa'ibka oo runtii aan maanta igu dhalisay inaan soo hor fadhiisto media oo aan arrintan ka jeediyo website kan horta hadaan warbixin yar inaga siiyo waxa la yiraahdo Tracker Corona waxa uu baahay waa website-dada caalamka hadda loogu daawashada badan yahay maadaama uu si maalinle ah u tabiyo cudurka inta uu dhimatay inta uu ku dhacay inta wax weyn ka badbaaday wuxuu ku xiran yahay wasaaradaha wadan walba wadamada caalamka oo dhan halkan wuxuu sheegayaa inta uu ku dhacay waxa uu ku dhacay buu ku leeyahay 1,435,149 qof inta uu dhimatay waxa uu yiri 82,000 oo qof 2,233 qof buu leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay inta waxa weeyaan ka caafimaaday waa 303,305 qof marka arrinkeena anigu halkan u socday halkan maaha halkan line-kan dheer baan horta cabaar yar in isla sii eegi doonaa horta halkan table-ku waxa weey waa wadamadii hadda wadan kasta waxa uu kaalinta koowaad wadankan ku galay oo kale waxa weey waa inta qof ku dhacday fiiri inta u dhimatay kuwana ka badan marka Mareykan baa ku jira kaalinta koowaad Spain baa kaalinta labaad galay kaalinta saddexaad waxa ku jira Talyaani kaalinta afraad waxa ku jira Faransiis kaalinta shanaad waxa ku jira adigu Allahu musta'an waxaan maleynayaa Germany inuu yahay Turkiga hadaan inaga waramo isagu wuxuu ku jira kaalinta shanaad kaalinta lixaad kaalinta toddobaad kaalinta sagaalaad ku jira waxa uu ku dhacay dad gaadhaya 334,000 dad ku dhow waxa uu dhintay 725 qof waxa ka badbaaday 1,582 qof wadankeena hadaynu fiirino wadankeena Soomaaliya oo ay arrinta aan u socda ay ku wajahan tahay wadankeeni Allahu musta'an waka wadankeena Soomaaliya 8 qof ayaa ku dhacday ku leeyahay hal qofna waa ka badbaaday Djibouti hadaynu eegno iyaduna waa iska wadankeena waa Soomaali baa leh Soomaali waxay leedahay inaynu mar walba ka hadalnaa waa wax inaga inoo quman oo inoo fiican Djibouti waxa ku dhacay buu yiri 9 qof wax dhimasho wali ma jirto buu yiri 9 qofna waa ka badbaaday arrinkan u socdona halkan maaha bayl charkigi weey halkan bayl char buu ku muujinaya halkan waa line artaan u socdo waa halkan timerka weey halkan waxaan ka arkay arrin sumcadeena sharafteena qiimaha badan iyo waxa weeyaan wadaniyadeena wax dhaawacaya mid in kamid wax dhaawacaya hadii aan halkan la yiraahdo animated map xogaa yar oo faahfaahin inaga siiyo wuxuu leeyahay waa map dhaqdhaqaaqaya yani animated sameynay marka mapkan dhaqdhaqaaqaya wuxuu ku tusayaa hadda halka marka fiirino waa cudurka oo maalintii koowaad ka soo bilaabanaya ilaa maanta aynu joogno ay tahay 7 Abriil arrinta aad ka ila yaabisay oo aad ka cajaa'ibka iga dhigtay waxa weeyaan hadda wax ka bilaabaya January waa wadankeena hadaynu tagno qaaradeenu markay saa tahay waxa weey waa complete soba waqooyi iyo galbeedba
laakiinse halkan waxaynu ka arki doonaa arrin cajaayiba. hadda marka aynu taabano Ethiopia waxaad arkaysaa in borderkeeda ama xuduudeedu uu dhammaystiran yahay. Djibouti sidoo kale, Eritrea haddaad tagtid sidoo kale, waxa la yiraahdo Kenya haddaad tagtid sidoo kale. laakiinse haddaan anigu Somaliland dul tago wax uu isiinaya ama wax border uu isiinaya ma laha. laakiinse haddaan waqooyi koonfurta dul tago wuxuu isiinaya intii Talyaanigu guumeystay oo kaliya. waa intii Talyaanigu guumeystay oo kaliya. adigu waa soo geli kartaa, Aminated baa ka soo geli kartaa, timekaad ka soo geli kartaa, line-ka dheer timekaad ka soo geli kartaa, kadibna waad arki kartaa wax khiyaaliya maaha. ama waxaan meel cidlaa ka keensaday anoo wax weeyaan dalalka fiirinaya ayaan arkay hal mar kaliya. hadda waa kan waxay saaran waxa weeyaan muuskaygii baa dul saaran. marka muuskaygii markaan dul saaro intaas kaliya isiinaya, wax ka badan ama wax ka yar haba yaraatee isii maayo. waa arrinta aan la yaabay. hadda haddaynu tagno waqooyiga meel uu ka tirsan yahay ma laha. taasna waxa ay keenaysaa ama waxa ay xalaaleynaysaa in Somaliland, gobolada Somaliland Ethiopia qaadan karto, Djibouti qaadan karto. Djibouti hadday qaadato waa caadi, Yemen qaadan karto. ay meel ay ka tirsan yahay aan la garanay, meel ay ka tirsan yihiin aan la garanay. Kenya xitaa hadday rabto ay qaadan karto bay ku leeyihiin, sababtoo wax magacana kuma dul qornaa. waxa weeyaan border oo meesha uu raacsan yahayna ma laha. hadda fiir, haddaan daaro Aminationka uu sheegayo ama sida uu cudurku waxa weeye wadamada ugu faafayo. marka arrinka la yaab kale haddaan sii daayo, arrinka la yaab kale waa kan 8 qof oo cudurku ku dhacay wuxuu ka dhigay inta koonfur oo kaliya. fiir, hadda waad aragtaan inta uu guduudiyay wax weeyaan waa koonfurti. Somaliland halkay ka tirsantahay? meel ay ka tirsantahay magaya. wuxuu ku leeyahay baan u malaynayaa Somaliland ninkii wax weeyaan doonaa qaadan kara. meel ay ka tirsantahay ma laha. meel allaale iyo meel ay ka tirsan tahay ama borderkeeda uu ku xusay ma laha. taasna waxa weeyaan waa sumcad xumo uu inaga inagu reebay. sababtoo Somaliland hadduu Somaliland ku qori lahaa dee waa la garan lahaa, sida Djibouti oo kale. Somaliland waa la garan lahaa, laakiin Somaliland laguma qoriyo sababtoo waanay weli ictiraafkii qaadan. ictiraafkan la sheegayana dee waa dhalanteed. laakiinse arrintan waa arrin sumcad xumo inagu abuuraysa. qofku marka uu soo booqdo wadamada uu Kenya ku dhufto kale, Kenya wuxuu arkayaa in complete border leedahay, halkan Ethiopia uu ku dhufto. muxuu laakiinse website-kani Somaliland uu baxalkeeyo Soomaaliyana saa uga dhigay? Soomaaliya muxuu ugu koobay koonfurta kaliya? waa arrin isweydiin mudan, sababtoo ah inagu sumcadeena, sharafteena, qiimaheena iyo qaayaheena waxay ku xidhan tahay in borderkeenu dhammaystirmo, sida Kenya oo kale, sida Djibouti oo kale, sida Ethiopia oo kale. laakiinse in uu ka dhigo borderkeena inay koonfur kaliya tahay intuu Talyaanigu guumeystay waa arrin runtii anigu u malaynayo inay siyaasadii ku hoos duugan tahay. hadday kama ka dhacday ama khalad ka dhacdayna dee waa in raaligelin uu ka bixiyaa Tiger Corona, sababtoo ah sumcadeennii, sharafteennii, qiimaheennii, qaayaheennii waxay in badan usoo dagaalamayeen aabayaasheen, awowayaasheen ayuu meel cidla ah dhigayo ku tuuray. wuxuu ninkan la yiraahdo Sayid Cabdulla Xasan usoo diriray ayuu meel cidla dhigay. arrintanna waa arrin saameynaysa sumcadda Soomaaliyeed. waa in dowladda federaalka Soomaaliya arrintan ay wax ka qabataa. website-kan coronavirus la yiraahdo oo badanaa baahiya koronaha waa in lagala hadlaa arrintan. Soomaaliya oo kaliya wuxuu ku koobay intii Talyaanigu guumeysan jiray, intii waxa weeyaan waqooyiga ahayd oo Ingiriisku guumeystay. sida ay sheegaan inaga guumeysigaas inooma xisaabsano, sababtoo wadankeenu markasta xor buu ahaayo, guumeysigoodu wuxuu iska ahaa caasimadaha. marka arrintan waa in dowladda federaalka Soomaaliya wax ka qabataa. adigu waad ila arki kartaa, qof walba waa arki karaa. marka qof walba oo waxa weeye Soomaaliya waa booqan karaa website-ka. marka Soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedka waxaan ugu baaqin inay si dhaqso ah wax uga qabtaan website-kan oo ay waxa weeyaan arrinta uu soo bandhigay ama arrinta uu borderkeena ku kala jaray ay wax badan ka qabtaan. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.